قصة waxaa jirta gabar iga sheekaysay anoo Nairobi joogo iga sheekaysay waxay tiri Shukriyay qasada iyada ku dhacdaba waxay igu tiri Shukriyay ilaa marka hadda aan joogo marka qaar marka aan socdo gabadhi naxdinteedii waan u naxaa laakiin waxa marka soo xasuustaa hadalada qaarkood ay igu soo dhac markaas aan kaliya ku soo wado iska socdo waxay igu tiri Shukriyay gabar Muqdisho joogto oo diris ahaynay yaa waxay tiri ninkii aroosay wuxuu dhigay gabar shaqaalaha qabso waxaan sidii tiri inta naag islaameed lacag siin lahayd reer diriskayga ahaa oo family aan ahayn sidii tiri ama inta wacato inta $100 naag kala siin lahayd aad gabadha siisaa sax gabadhii aan reerkan waxay tiri waxaan dhigay gabadha la soo saaro gaari gabadhii gaari loo soo saaray oo loo soo tahriibiyay Nairobi loo keenay gabadha soo dirsanayso aad uma qurux badna laakiin gabadha la diraayo aad bay u qurux badneed ma fahamtay gabadhii mar allaar markii la keenay xariifkii gabadhan qabay jaa gabadhii kale la dhacay haye markuu la dhacay waa qisa jirta hadda qisa ma aha beenbeen ragga aan ku duqeynaayo oo wax jiro roglaar oo gabadhii iga sheekaysay ku dhacday qisada gabadhii waxay tiri allaar markaan dhaho macaani aroosaan aadayaan barnaamij saas oo kale aan baxay wuxuu leeyahay anaa ku qaaday gaariga kugu qaadaa ma bixiis markuu qaado uu geeyo oo intuu soo carro ilantii kale u sheekayna moqti mar alaan maan diriskaaga waa ilaalaan lagu dirar ma fahamtay diriskaaga waxa ku yiraahday naaya heblaayay gabadha guriga ku joogta maxay ku taa waa walaashay dirisaan Muqdisho ku ahaynay anaa gabadha maxaan ku dhigi karaa dalbaday anaa saayaan waa walaashay wax ila dhashay wax ma dhaanto haye aan gabadhan iyo ninka waxba isaga daran haya ma yaa la yiri gabadha waxay tiri ma waa walaashay waxa liimaya gabadhan iyo ninka waxba isaga daran hebloy arintan maalin kale na weydiin doontaa waa gartay okay ninkii wuxuu ku tiri maalin dambe xabiibi waxay tiri aroosaan aadaa maanta reerkan diriska yaa raacaya wuxuu ku yiri anaa ku qaaday maya hay qaadin reerkan aan raacaya shan uu jaran jarta kaga dagay reerka diriska ay u tagtay waxay tiri hay barnaamijka ramaanta inaan kala jaro waa israacina aroos soo soconnaa iga xarooda gabadhii lacag siisay waxay tiri hoos u dagay cashada caawa saas la karinayo hoos ka soo qabso furahana reerkan aan kugu dhibay inuu libisay aroos ay aadaayay tiri ma libistay tiri mar alaan markay degatay reerkii u wacday sirta hoosteeda gashay kor guri looga qufulay furihina waxa la ku dhigi kala gabadhii la sii markay timi way bixeenaa la yiri sirta hoosteeda ugu jirtaa taleefankeeda ay qabsatay maxaana soo orod way baxda qumayadii soo orod soo cararaay yimid haye meesha ama dhidhi ka dhacdo gabadhii dhagta loogu shubay sirta hoosteeda ku jirto waa gartay soo gurguurtay way adkaysay way tiri waa soo gurguurtay tiri waa soo fadhiistay tiri wuxuu dhigay tiri adduunyada maxaa inoo leeyay macaawistiisii asaga shaatigiisii shan ku dagtay marka gabadhii inta war maslaxa horta inta barteeda sax aan ku wax kasta waa la arkaa abaayo maalinta iiga sheekaysay gabadhii wiilku way dhaqmayaan hadda alxamdulillah laakiin mar allaal markaan meel maraayo waxa ugu soo dhacday sirta hoosteeda gaay واقع لا يابل رماتي فكرتاس gabadhaas meesha ka keentay wallahi waa qoslaan marka rag laftigoodana inay iibaanka sugtaano gabadha guriga la keenay aynan jaleecin ha isku fiiriyaan